soddon sannadood ka hor waxay ahayd markii ay haleeleen mujaahidiintii SNM guushii ugu horeysay dib u xoreynta dalka kadib markii xoogagii ururkii SNM 27kii bishii May 1988 ay weerar nafurida ku soo galeen magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer taasoo noqotay Burco magaaladii ugu horeysay gacanta ku dhigan mujaahidiintii SNM ee maalintaasi soo galay magaalada Burco oo ahaa guutadii la baxday Madiina oo uu hogaaminayay mujaahid Axmed Mire Maxamed oo kamid ahaa saraakiisha sarsare ururkaasi SNM waxaana tallaabadaasi ay noqotay mid guulo u horseeday ururkii SNM iyadoo 31 May ee isla sanadkaasi 1988 dhaqdhaqaaqii SNM qabsadeen magaalooyinka Hargeysa, Cadaadley iyo deegaano ku yaala xeebta iyo buuraha Sheekh. Muddo dheer kadib mujaahid Axmed Mire Maxamed waxa uu maanta soo gaadhay magaalada Burco iyadoo halkaasi loogu sameeyay soo dhaweyn aad u ballaaran. Dadweyne iyo gaadiid aad u tiro badan ayaa soo dhaweynta mujaahidkani kaga hortagay duleedka degmada Qoyto ilaa 18 kiiloomitir dhanka waqooyi kaga beegan magaalada Burco. soo dhaweynayno mujaahid Axmed Mire Maxamed oo qarankan kula calaamad gaar ah aad iyo aad bay farxad noogu tahay. mujaahid Axmed Mire ku soo dhawow gobolkaagii raggana waa raggii ku dhashay dareenkaagii iyo mujaahidnimadaadii iyo awooddaadii koob intaasoo nin oo halkaa taagan waa min 20 jir ama waa min 30 jir may jirin maalintii ay kugu dhalatay inaad heryada gumaysiga ka dulqaado. ilaahay baan ugu mahad celinaa inaad maanta nagu soo noqotay adigoo caafimaad qaba. waxaananu kuugu bishaaraynaa ujeeddadii iyo qarannimadii iyo horumarkii aad lahayd maanta reer Somaliland inay halkii aad ku hamiyeysay marayso. waxaanu u baahannahay fikirkaaga, waxaanu u baahannahay taladaada, waxaanu u baahannahay caqligaaga iyo manfacaaga wixii maanta ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kugu simay. nin waliba maalin buu lahaa, ninkii lahaa 27 May hogaaminaya ciidamada SNM ee ka dhex toosay magaalada Burco ayaan maanta halkan ku soo dhaweynayaa. ku soo dhawow mujaahid. gudaha degmada Qoyto waxa uu mujaahid Axmed Mire Maxamed uu kala hadlay kumanaan dadweynaha wuxuuna uga mahadnaqay soo dhaweyntani ballaaran. maanta halkan lagu soo dhaweeyo oo ah gobolkii Togdheer oo aan hore u oran karo waa xuduntii dalka. waxa weeyaan halkan waa halkii la tilmaamayo ka dhacay. waxaan leeyahay ku soo dhawaada. waxa weeyaan dadkaygii baan u imid, dalkaygii baan imi. waan idinla joogay haddii la idmo. wax liya wixii dee tamaraya waxaynu isku beeri karana waa ka wada tashan doonaa. waxaan tala ahayn oo caqli ahayn ku socon mayno haddii la idmo. wax walba in laga tashadaa, waan caqliga la isku beeriyaa, waa in la istoosiyaa, waa in la istabantaabiyaa. ugu dambeyntii mujaahid Axmed Mire Maxamed waxay dadweyne iyo gaadiid aad u tiro badani ay ku soo wareejiyeen qaar ka mid ah wadooyinka halbowlaha u ah isu socodka gaadiidka iyo dadweynaha magaalada Burco. wa Maxamed Ibrahim British.